والله وحبا كفالي ماينو والله هو قرون ماينو والله عدك لهوس قالي ماينو تلالا دولبهانته برحالا aan cid kale hoos tagin waxaan ahay waxba ku fali mayno kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaan waa barnaamijkeeni Dhambaal TV oo idinka yimaada studio-yaga bariga Saudi Arabia gaar ahaan magaaladiisa Dammam waxaan idin daadiyay anigoo ah Cawl Cismaan Jaamac Cawd Cagaare waxaa maanta si toos ah inaga qayb qaadanaya studio-yaga cariga Ingiriiska ee magaalada Cardiff oo halkaas ku sugan yahay Ismaaciil Ducaale Ismaaciil Aftaag daawadayaal maanta barnaamijkeena waxaynu ku soo qaadanaynaa taariikh cusub oo gashay gobolada SSC ama maamulka Khaatumo oo maanta si toos ah loogu dhawaaqay ra'iisul baarlamaanka halkaas oo doorasho xalaal ah oo ay ka dhacday doorashadaas oo caalamkooda indhaha ay ku hayeen ayaa waxaan idin soo deenaynaa sidii habsamida lahayd ay doorashadu u dhacday ee inteena barnaamijka ayna furfurin ama aynu gudagelinba aynu daawano sidii doorashadu u dhacday الرحمن دعالي عبدي الجبال محمد علي هيان الجبال عبد الرحيم شيخ الجبال عبد الشكر الشيخ يوسف عبدي محمد حاج الدرب وعلي الجبال عبد الشكر الشيخ يوسف وعلي اللبان عبد الله احمد اسماعيل جفل محمود علي وعلي codadka la tirinaya guddoomiyihii hore ku meel gaarkaaba sanduuqa inoo furaya codka aynu tirinaynaa ilaahay idankiisana waxaynu rajo ka qabnaa in cod bixintu wareegan inoogu koobnaato sidaa iyo daawasho wanaagsan بسم الله الرحمن الرحيم ورقة الكويت فاطمة جامع فاطمة جامع علم عبد الشكري فاطمة جامع فاطمة جامع عبد الشكري يوسف شرتك فاطمة جامع فاطمة جامع يوسف شرتك يوسف شرتك عبد الشكري يوسف محمد عبد الشكري فاطمة عبد الشكري
شرطك 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 فاضمو شارع فاضمو شارع فاضمو شارع فاضمو شارع فاضمو شارع عبد شكري شرطك فاضمو شارع يوسف شرطك شرطك فاضمو شارع وغدا وغدا بيسا عبد الشكري codadka la bixinayo koob iyo soddon ahaa gebi ahaanba koob iyo soddonka xubnood ee baarlamaanku way codeeyeen bilada faadumo jaamac waxa ay heshay 14 cod waxay nasiib u yeelatay inay noqoto gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka khaatumo state of Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka geyga Soomaalida oo dhan qofkii koowaad ee gabadha gudoomiye ku-xigeenka noqda waxaa ku xiga يوسف محمد اسماعيل يوسف شرطك عرفتي مدحيني وحي هاي 7 cod waxau ku guulaystay inuu noqdo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka khaatumo state of Soomaaliya waxaa codad kala gaarteen oo ahaa musharaxa saddexaad ee labada xubnood ee gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ka hormareen cabdi shukri waxaan soo istaajinaya cabdi shukri بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa dhammaan bulshaweynta reer Khaatumo ay ugu horeeyaan golaha sare ee dhaqanka golaha madaxtooyada maxamed yuusuf jaamac indhashe ugu horeeyo profesorka rugcadaaga ee daadayar cali khaliif galayd baarlamaanka sharafta leh ee aad iyo aad u wanaagsan guudgaas koowaad oo mar walba iyagu u heegan inay magaranaysaa ay u heegantan tahay qaariga Khaatumo iyo dhammaan bulshada oo dhan waxa ay farxad maanta oo farxad weyn ah inaan arko reer Khaatumo oo si dimuqraadi ah intay baarlamaanteer u doortaan codeynaya oo la leeyahay hebel waa codeeyay banaad iyo aad ugu faraxsanahay waa maalin guuleed waa maalin gubannimo waa maalin aynu tallaabo u qaadnay xagga dimuqraadiyadda waxaa kaloo farxad weyn aad iyo ah in aniga layga adkaaday tartankii ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad waan ku faraxsano haddii gabadh baa nala tartamayso ila shirtag haddii laga adkaado orodku halkaa ka qaado taasina waxay farxad waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa walaalaha iyo yuusuf shirtag iyo faadumo jaamac oo ka labaad iyo ka koowaad kala galay waan la shaqayn doonaa anigu markii horeba waxaa nin xulinteeri ah iminkana waan la shaqaynayaa aad iyo aadna waa inoo shaqaynaya dhammaan dadweynaha reer Khaatumo meel kasta ha joogeen waa salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa maqasha sharafta badan ee ay doorashadu ka dhacayso reer Khaatumo iyadoo qof waliba salaanta uu ka qaadanayo meesha uu ku leeyahay ciddii garanaysana waxaa la yidhaahdaa yuusuf maxamed ismaaciil iyo gudaha joogta
wixii dibadda joogay aanay garanayno yuus maxamed ismaaciil baa la yidhahdaa ina shatag baan ku magac dheerahay idinkana waxaan idin leenahay gudinta gadhayuus doorashada halkan ka dhacday oo xaqiiqdii anigu markii hore aanan ku talagelin oo daqiiqadihii igu dambeeyey igu dhalatay aanana ka kaambeyn garayn waxaa ii caddaatay doorashada ku xigta anigoo dareenka dadka reer khaatumo inaan madaxweyne ka noqon doono haddii lahay waxaan u hambalyaynayaa faadumo jaamac oo ku guulaysatay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamul goboleedka khaatumo waxaana idin leeyahay khaatumo waxay xaq gabdhuhu leeyihiin boos ka sii sareeya kaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بدو مهتمين بينها غير خاطمه مانتا خلك أضاق يدورتي إلهي لإي ويدية إن إلهي يفضايو أنا كنا وحان بلان قاضية وبلان إلهي ورانا عن كتاب قمري إن أن أشطيو خاطمه سيدو أبو أضاق أن أودو أبو أقصاها بدن oo aan ka qayb galo meesha ugu adag ee fulinta dagaalka iyo kicinta dadweynaha oo aan ka qayb galo meesha ugu adag xerada ciidamada aan galo jihaadka aan la galino ciidamada sheegaha ee gumayska sharcigana waan ilaalinaynaa dad islaamana waanu nahay waxaan u sheegayaa gaasoobaad in madaxweynuhu shalay lagu dhawaaqay qaybta koowaad ayaa shalay laynoogu dhawaaqay taasina waa midaynu helnay insha allah horena waynoo sii soconaynaa waxaan ka salaamayaa madasha sharafta leh iyo madaxweynaha gole dhaqameedka xuqaasha golaha sare ee dhaqanka barsoor cali khaliif iyo jiidankiisa intayna gala joogta urda joogta cuqaasha haweenka hablaha dhalinyarada ciidamada aan ku hurudno wareegooda iyo taagnadeeda iyo istaambiga ay yihiin aan hadalka sii fudin maayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi بسم الله وعن مقع إلهي قد أرنيا inaan xilkayga u guto si daacada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto iyo shuruucda kale ee maamul goboleedka khaatumo wabilaahi tawfiiq waxaan magaca ilaahay ugu dhaaranayaa inaan xilkayga u guto si daacada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto iyo shuruucda kale u taala maamul goboleedka khaatumo wabilaahi tawfiiq وكي نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أما بعد إله أود له وحين نقول مهد علينا قرآن كان إيا شركا سيدا نبتقليا إيا وناق له وينوغو قبطي qaybteedii hore aasaaska u ahayd ee golaha baarlamaankana uu inoogu soo fududeeyey maantana guddoonkii golaha inoogu hirgeliyey doorashadiisa ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa isagaa awoodleh isagaa inoo suurogeliya hadduusan inoo suurogelinna inooma dhacdeen dadaal kastoo aynu samayno ilaahu inta kalena noo fududee hal qodob un baan ku daraya maanta reer khaatumo waxay caddeeyeen ama aan idhaahdo beelaha reer khaatumo waxay caddeeyeen meesha ay kaga jiraan hablahooda weynaanta ay la weyn yihiin danaynta ay danaynayaan waxaanu adduunka u sheegaynaa annagoo aan international community nagu khasbin oo ayan odhan ama dhaqaalaa laydinku siinayaa in 30% baarlamaanka iyagu uu yahay
hablaha reer khaatumo ay ku matalayaan cid lagu qasabtay ayan jirin cidii ayan gacanta lagu manoojin annagu doonistayada iyo doorashadayada aanu ku keennay waxaanu kaloo ku caddaynay oo muuqanaysa maanta in guddoomiye ku-xigeenkii koowaad u horreeyey ee qaran soomaaliyeed uu yeesho in gabadhii ugu horraysay ee madaxweyne ku-xigeen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ka noqota soomaaliya baarlamaan loo dhiso inuu khaatumo ka dhacay iyana taariikha ay tahay hablaha iyagu meesha ay noogu jiraan inay kaa tilmaamayso inay aada noogu wen yihiin in dadaalkooda aanu ka warqabno inaanu jecel lahay in aanu mar walba sharfayno oo cisaynayno oo aanu soo dhowaynayno howlaha halka ay noogu jiraan aanu muujinayno aad iyo aad baan beelaha reer khaatumo iyo golaha baarlamaankana muujinta ay muujiyeen aan ugu mahad celinaya wabillahi tawfiiq daawadayaal intaas waxay ahayd sidii kala duwaneed ee doorashadu u dhacday daawadayaal iimaylo badan ayaynu maanta inoo yaala waxaa inoo yaala wadamada Yurub Mareykanka oo iyaguna iimaylo fara badan noo soo diray iyagoo u badan fiidiyoyo iyo codad ay noo soo direen iyo sida ay nogala qayb qaateen barnaamijka Dhambaal TV iyo tahniyadaha ay dirayaan shacabweynaha ku dhaqan caalamka oo dhan gaar ahaan shacabka reer Khaatumo waxaan meesha ka maqnayn daawadayaal sida habsamida leh maamulku u socdo halkaas oo maanta caalamka oo dhan markuu eegayay legislaatorow miyaa la isku qabsanayaa maxaa ka soo baxaya laakiinse meeshaas waxaa ka soo baxay guul aad iyo aad u wanaagsan halkaasoo shacabweynaha fara badan ee iimayladooda ay ku soo dirayaan ay leeyihiin hambalyo ay u dirayaan guddoomiyaha koowaad ka labaad iyo ka saddexaadba midda labaad taariikhda waxaa gashay gaar ahaanba Soomaaliya oo dhanba weli lama arag gabadh inta iyadu cod doorasho gasha si wanaagsan ay weli codkeeda ugu guuleysato halkaas weliba gabadh kamida gabdhaha u soo tartamay xilka labaad ee baarlamaanka ama guddoomiye ku-xigeenka ay ku heshay gabadhaas oo iyadana lagu magacaabo Faadumo Jaamac halkaas oo dadka badan ama Soomaali oo dhan ay yaaban yihiin ay leeyihiin weli ma arag sida wanaagsan ama habsamida leh oo doorashadu ugu dhacday markii koowaad ee taariikhda gaar ahaan gobolada Khaatumo State of Somalia daawadayaal intayna barnaamijkeena gudagelin waxaan ku horeynaynaa iimayl fara badan oo shacabweynuhu noo soo direen ayaan waxaan jeclaysanay inaan horta qaada dhigno waxyaabihii ugu habboonaa balse waxaan ku bilaabaynaa saaxiibkeen Daahir Calasow oo aad wada garanaysaan oo ah tifaftiraha website-ka waaga cusub oo isagu hambalyo aad u dheer u soo diray shacabka marka Daahir Calasow warqadiisii oo inoo soo diray aan inoo akhriyo Daahir Calasow ayaa wuxuu hambalyadiisa ku bilaabay waxaan u dirayaa buu yiri marka koobaad Faadumo Jaamac iyo Maxamuud Sheekh Cumar anigoo ku hadlayay buu yiri magaca madaxda iyo bulshada Galmudug Office State of Somalia Daahir anaguna aad baanu kugu soo dhaweynaynaa wuxuu yiri oo kale anigu oo farxad la ilmeynaya waxaan hambalyo u dirayaa guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Faadumo Jaamac oo ku guuleysatay doorasho u dhacday si xor ah oo xalaal ah wuxuu yiri dhaarbo mar wixii sumo wallahi waan sacabinay marka magaceeda lagu dhawaaqay maxaa yeelay waxa sharaf taariikhi ah in gabar Soomaaliyeed oo tartan noocaas oo kala ah ay ku guuleysato aad baanu Daahir Calasow anaguna kugu soo dhaweynay hambalyadaada daawadayaal waxaa jira oo kale aan aad shacabweynaha reer Khaatumo gaar ahaan gobolka Sool aan aad ugu baraarujinayna waxaa jira garoomo fara badan oo ay lahaayeen dhalinyaradu ay ku ciyaaraan basketka garoonka la oran jiray waa la wada garanayaa basketkii wuxuu basket dawladii hore ka tagtay oo dhisnaa inkastoo dayactir badan oo u baahnaa marka dhalinyaro badan oo iyagu ka soo jeeda deegaanka gobolka Sool
ayaa iyagu waxay noo soo direen qoraallo kala duwan ay leeyihiin meesha dhulkii waa la baabi'inaya oo dad baa iibsanaya marka waxaanu leenahay ama codsiga iyagu yahay in laga hortago arrintaa iyo garoonka basketballka in aan la iibsan ay leeyihiin shacabka gaar ahaan weliba dhalinyarada waxaan ku baraarujinaynaa in garoonka aan la iibin haddii cid haysatana loo tago waxay u baahan yihiin loo sameeyo garoonka iyo basketballkana hala badbaadiyo aanu leenahay annaguna Dhambaal TV haddaan nahay aad baan idinka gaarsiinaynaa dhalinyarada iyagu gobolka Sool weliba iyagu dadka qurba joog arrimahaas oo dhan way la socdeen daawadayaal waxa kale oo jira maamulkii Khaatumo State Soomaaliya si habsami leh ayuu socdaa waxa jira in bari wixii ka dambeeya la gudagalayo doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka insha Allah anaguna waxaan jecelaynaa si toos ah idin kala qayb qaadan doono wariyaasheeda halka ku sugan iyaguna si toos ah inagu soo gudbin doonaan daawadayaal maanta waxaan ugu talagalay in aanu arrinta ku soo kala fokorno ama ugu hambalyeeyno shacabweynaha reer Khaatumo doorashada xalaasha ee maanta ka dhacday ee weliba taariikhiga gashay marka daawadayaal waxaan si toos ah idinku duwayaa studio-hayaga cariga Ingiriiska iyo magaalada Cardiff iyo Ismaaciil Ducaale Ismaaciil ku soo dhawow halkaas oo weliba Ismaaciil ku hayo dad fara badan oo iyagu dhiibanaya hambaliyadooda iyo taageeradooda wadamada Yurub iyo Mareykanka ku sugan aan idinku duwo Ismaaciil kulanti wacan oo wanaagsan meel kastoo aad dunida ka joogtaanba waa mar kale iyo Dhambaal TV Dhambaal TV waad uga barateen inta badan inaan idila socodsiino waxyaabaha ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Khaatumo State of Soomaaliya daawadayaal sida aad la socotaan muddooyinka waxaa la fadhiyay degmada Saaxdheer halkaasi oo loo qoondeeyay in uu ka dhaco shirweynihii saddexaad ee dowlad goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya kaasi oo la doonayay in lagaga gudbo dowladdii ku-meel gaadhka ahayd isla markaasina loo gudbo dowlad rasmi ah durba waxaa gudaha iyo dibaddaba ka soo qulqulayay wufuuddii tirada badnayd ee ka qayb galaysa shirweynahaasi dhinaca kale maamulada Puntland iyo Somaliland oo iyagu awalba u tafaxaytay sida ay isu hortaagi lahaayeen shirweynahaasi loogu talagalay inuu ka qabsoomo degmada Saaxdheer waxa uu noqday mid ay ku hungoobeen haddii ay damacsanaayeen inay duulaano ismidaamisa ku soo qaadaan iyo haddii ay damacsanaayeen inay carqaladeeyaanba degmada Saaxdheer waa meel ku habboon waa meel istaraatiijiya waa meel aan si sahla lagu soo geli karin sidoo kale markii ay arkeen shacabweynaha reer Khaatumo dhibka iyo duulaanada uu ku hayo maamulka Somaliland waxay go'aan dhaba ku qaateen inay markan wax waliba ha dhacaan ay iska difaacaan daawadayaal haddaba Dhambaal TV waxaanu idin soo gudbin doonaa waraysiyo aanu la yeelanay qaar ka mid ah aqoon-yahanada siyaasiyiinta iyo waxgaradka bulshaweynta reer Khaatumo waxaanuna ka waraysnay sida ay u arkaan xilligan aynu ku jirno howlaha baaxadda weyn ee ka socda degmada Saaxdheer haddaba waxaan isku dayi doonaa inaan idiin soo gudbiyo afkaarihii kala duwanaa ee ay aqoon-yahanadaasi soo gudbiyeen iyagoo ku kala sugan meelo ka mid a dunida darafyadeeda wufuudda sharafta leh odayaasha waxgaradka dhalinyarada haweenka qaaliga ah reer Khaatumo iyo inta waxbarashada ku jirtay aad iyo aad aan anigu haysto jiilka cusub ee inuu bedeli doona laakiin hadda ciilku korka ah waxaan leeyahay maadaama aad nasiib u yeelateen oo Saaxdheer maanta joogtaan Saaxdheer waa Khaatumo taariikhna Khaatumo ahayd labada geeyiba waa Khaatumo meeshii danta ay ku qabsanaana waa inoo meeshii kale ciidanka ka yimi xagga Puntland waxaan ku adkeynayaa ugu bogaadinayaa inay difaaca dhulkooda ka qayb qaataan boqolkiiba boqol si ah xaafad waliba
iyadaa isu soo habeynaysa. halkan waxaan rabaa runtii inaan ka taageero go-aankii geesiimada lahaa ee ay beesha caalamku qaadatay, kaas oo ay xaqiiqada ugu sheegaysay labada jabhadood SSDF iyo SLN, kaasoo aan odhan karno mahaantii wuxuu yimid xilli ku habboon, xilli ay daruuri tahay in runta loo sheego qof kasta oo iyo aadan ah oo xaqdaro wada. runaantii waxaan leenahay kooxaha ay arrintaas khusaysaa ama hoggaansiiyeen shuruucda caalamka iyo dhawaaqa culus ee ka soo yeeray beesha runtii Soomaalidu waxay ku maadaan biyo gacmaha laga dhigay taa waxaa looga jeedaa nimanka siyaasiyiinta ama isimada ama garaadada ka shaqeynaya maamulada kale. waxaana kala wariinta maamulada kale ka shaqeynaysaa nin gurigiisa uurisan ama nin aan arrimihiisa xalinaysan, waxaan u malaynayaa in gurigaaga ay cidi ku dhacay kaale oo gurigaaga samayso in aanu dad waxa ay leeyihiin xoog ku qaadano. waxa kaliya aanu doonayna waxa weeye aanu noolaano sida ummadda Soomaaliyeed iyo gobollada kale ay u nool yihiin, sida ay u nool yihiin maamulka waqooyigu, sida Puntland ay u nool yihiin, galmudug u nool yihiin. waxyaalaha ka dhaxeeya waxaa ka mid ah Soomaalinimada. haddii yacni qole leedahay Soomaalinimadii annagu waaba ka tagno, kuwana leeyihin walaal aniga Soomaalideedii baan rabaa. of course umaleyn maayo qofku isagu wuxuu doortay ee uu yacni iskunuusan maaragtay ku khasbi karin qof kale inuu la doorto. waxaan dhihi lahaa aad iyo aad arrintaas beesha caalamku haga buuxsato mar labaad. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وفتح دار حاج حسن شوقة دلك النروي، وحان آد دسو دوين يا دورشدي حقا هيد حراشة إذا كد علي المقالة صحدير قدوم كلا دورتي قولها الشعب كخاتمو وانوهم بليين يا سودو هذا بان لا يهي إلهي هيدن كدقو كوي دلكو دي دين تو دانفعا حقا نكوه قامية dadka reer Khaatumo. mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin hambalyeynaya. noqdo kuwa waajibaadka loo doortay ee dastuuriga guta, dadka shacabkaana u khidmeeya ugu khidmeeya si xaqa oo cadaalad ku jirto. waxaan idinku dardaarmayaa xilka aad qaadeen Ilaahay hortiisa iyo aadamuhuba waa idinkula xisaabtamayaa. aadamaha waxaad doontaan hortooda waad ka samayn kartaan, waadna khiyaami kartaan, laakiin ilaahay ma khiyaami kartaan. maalinka yowmal aakhirana nin walba xilkii uu qaaday iyo caqdiguu galay rabbi wuu kula xisaabtamaya. caqdi baad gasheen, siduu yahay u oofiya. ilaahay ha idiin fududeeyo, annagana ilaahay ha naga dhigo kuwa idiin hogaamsama oo xaqa idinla garab gala. shacabka reer Khaatumana guud ahaan waan u hambalyeynayaa golaha ay ku doorteen geedka hoostiisa. waa halkaasaa talada Soomaalidu ka bilaabantaa. geedka hoostiisa wixii lagu bilaabaa meel fog bay gaadhaan. aad iyo aad baan dhammaantiin idin salaamaya meel aad joogtaanba. ilaahay guusha uu ina siiyey haynoo siyaadiyo. 180 kilomitir ayaa shirkan lagula dagaalamay. 70 kilomitir bay laascaneedu jirtaa. 180 kilomitir bay u jirtay bartii lagu qabtay ee Somaliland kusoo weerartay. ilaahay idankiina wuxuu ku qabsoomay meel laascaneedu inuu jirta 70 kilomitir. waa cadowgeenu inuu jabay oo hungoobay ayaa halkaa idinka cadaynaysa. ilaahay waxaan idin rajeynayaa inooga rajeynayaa dhammaanteen reer Khaatumo sida ugu dhaqsaha badan inta hadhaynan dabada iska raacino. guuleysta waad guuleysanaysaane qalbigiinu siduu isugu soo dhawaaday ilaahay ha inoogu siyaadiyo. ilaahay halkaa ha inoogu sii siyaadiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا أخذت الصالح وحنا كان بيانا تاريخ تهاي كان في بس في جوات في تنسالف مجانا محمود شيخ أنا في الدنيا السواد برنامج خاصة السنة ولا في الجلسة وحنا هاي في الجلسة ما شاء الله خلينا بهنا هاي عندنا بخاصة هجوم عندنا بالقط هذا مال درديسي عندنا بالقط في موقف أدفع السياسي أبدا فيهم بالوايا وهي هنير على وكان في السوق النظري إذا عدى أنا فيها تاريخ مالك عندك شيء وكان هناك في قرص لما تيجي تجرب رسولنا إن شاء الله دينه وبيتا شخصيا ده وبيدينهم بدينهم بالله كلها هاي أنا كل شخصيا فجنة فكر كل يوم تستجى يبقى أنا بدينهم هذول قصة في صبورة طبعا وتهاجرة أنا بدينهم تهاجرة بعد حاجة يعني الأولين وما هذين صادقة الحمد لله وصادقة وحنا نحيط يعني مرتين ما نقبلهم وصفت بديني بعدين لما كان في الجلسة كنت في نقطة لا يقول لنا خلق هذه الدنيا ومدنا في وقت خلاص على الجماعة خاطر الله الحجارة الله كريم بديك القوات قوات طالبة علمي لما نحن بلي المريضة حالة تسويه مصلحة سياسية مصلحة شغلانية مصلحة الدنيا وحياه صادمة هل بالخيال حتى قوات القشال أرجع يفرح سنة مبارنة تهيئ خيال الليل من طالبة علمي من الفاضلة حلوان من الفاضلة من البياقة لا يفاضلية البياقة وحنا في السودية إذا هي نقرب هيفا هدي من نقرب كابرته هيفا كأبيضان إن شاء الله وسودية المسلمة أن يحصل يقولها الهيين كأبيك يسر يهدي لها كيف يسرعها هيكا نتابعها إن شاء الله بالله الكريم وما يقرأ خاتمين كستيشان بمان فهمنا لنا يدين بقلبه ويبخيط انت هيك انت فتش لي انت لا يصير انت جيدة ما يصير لا يصير حد برنامج بديت محيرا ما يتحيرا نفسك أسبارنا وحيرا نذكر بارنا وحيرا نذيرك تنبيك انت الحياة انت اللي يصير يجيب هو الأبانا ما شاء الله أكثر كثيرا لما كنا حديثين لأن شئت يهدي إلى هذه عد حلال الله ضرورة كان يصير سيف كويس سيف كلام إن شاء الله سيف حديثين لقينا سيف رسولنا سيف كان حلال الحزين والسودية كتبين في السودية همبلين في سعيد وكسر بلد عيان قريت الأسعار طويلة صورة ساعة وحلال جهاز كذا هاي هاي أنا أقول بتشوف هاي هل الرجال في خيرنا مصلحة مرضنا كثيرا كذا وسبيل خيرنا حب تأخذ في الكتلة فأساعد في الكتلة فأساعد الشرع إلى الحي لا نستحيل ولا نزل لا على كل رجال وبس هذا إن شاء الله بالله الكريم وليس الوصلة في الله الخاتمة أو العبارة هذه وننصح حب الشركة خاتمة ليس لبس كبير الشيء في كيف في سنان السنة وحالا المهتم فيه وعليها كل شيء كشارة.com بندال في شبارة.com بلدان السيطر إليه شفاعة الله شقير إليه الميداية إن شاء الله بليه الكريم جيد ورجالنا على هدوك حلوة تعرف الملايين هدوك الإسكون يقول يرغال غتشي في مايو وأفعالا اللبو الفتح المايو إيه تلغد في مايو ورجالنا بيشير أكتب لكم هلوه والله إيش هكا هلغيره نبلغ الله مالك بدونيه هي بدونيه تقدين فتحارة تبقى ريوه نبلغ الله وحيوه يسير بيالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baad u mahadsantahay Ismaaciil kaasina waxaa Ismaaciil Ducaale Ismaaciil Aftaag oo isagu si toos ah inaga qayb qaadanayay barnaamijkeena aad baan kaga mahadcelinahay Ismaaciil daawadayaal intaynu barnaamij lamid ah aynu ku kulmayno wixii talo iyo tusaale ahba waxaad noogu soo diri kartaan emailka saashada ka aragtaan si aanu idinku soo gudbino codsigiina aad baan u mahadsantihiin daawadayaal anaguna waxaan idinkaga tagnaa sida iyo nabadgelyo